madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud oo ay wehelinayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay deegaanka Goobweyn ay si wadajir uga dhagax dhigeen xarumo cusub oo ay ku shaqeyn doonaan maamulka deegaankaasi oo qiyaastii 15 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. xarumahan cusub ee la rajeynayo in laga hergeliyo deegaanka Goobweyn oo uu si weyn ugu ololeeyay maamulka degmada Kismaayo ayaa waxaa dhagax dhigiisa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Goobweyn Cumar Hurow iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timijile waxaana ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin dhagax dhiga xarumahan cusub ee loogu talagalay deegaanka Goobweyn. waxaan idin leeyahay mudane madaxweyne ku soo dhawaada Goobweyn inaan haddaan nahay reer Goobweyn inaan helno mustaqbal wanaagsan xafiisyo meel hooy ah inaan helno gudoomiye noogu ololeeyay oo ah gudoomiye Maxamed Ibraahim Timijile aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. saaka runtii farxad bay noo tahay inaanu halkan u nimaadno mashaariic iyo hawlo laga hirgelinayo Goobweyn. waxaan u maleynayaa Goobweyn waa tuulada ugu dhow magaalada Kismaayo waana tuulada ugu macno rooneed waagii aynu waahayd waxaan ku faraxsanahay saaka waxaanu keenay wax yar oo aanu reer Jubbaland ugu talagaleen in laga sameeyo magaalada tan waa xaruntii wax laga maamuli lahaa oo maamulka oo la dhisayo. waxaan kaloo rabnaa inaanu gelino ilaa 40 xabo oo soolara oo wadooyinkan magaalada la geliyo iyadana barnaamijkeedu waa wadnaa. intaas wax badan kama tarto baahida Goobweyn. Goobweyn waxay u baahan tahay isbitaal inay hesho, waxay u baahan tahay inay iskool hesho, waxay u baahan tahay saldhig boolis inay hesho, waxay u baahan tahay wixii bulshada u baahayd oo dhan inay hesho. annaga reer Jubbaland ahaan inta tabartayo tahay waa rafanaynaa. waxaan jecelahay hadda xarunta maamulka inaan ku xijino saldhig booliska iyadana oo Jubbaland ay samayso cid kale ka dooni mayno. intaasi kadib ayaa waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta maamul goboleedka Jubbaland Shukri Weyrax Kaariye waxaana ugu dambeyn hadalka qaatay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud oo sheegay in maamul goboleedka Jubbaland uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dadka deegaanka Goobweyn kana codsaday shacabka inay la shaqeeyaan maamulka Jubbaland. waxaa maanta annaga mar labaad sharaf weyn noo ah xukuumadda uu hoggaanka u yahay madaxweyne Axmed Sheekh Maxamed Islaan madaxweyne ku-xigeenna uu ka yahay Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud inay soo celisay mar labaad in dib noolayn lagu sameeyo dalkii siduu dalku u burburay dhagaxaas siduu u burburay dadkeenna u burburay. waxaa u baahannahay labadaba in dib loo nooleeyo dadka in maskaxda laga nooleeyo dhismayaashii naga burburin in dib u cusboonaysiin lagu sameeyo baynu u baahannahay runtii. bulshada caalamka waxaan ka codsanaynaa waxay nagu dhaanto iyo cid kasta oo reer Goobweyn ama reer Jubbaland oo maal gelin karta waxbarashada maalgashi ku samaysan karta ama noogu samaynayso naga caawinaysa inay waxbarashadii noo nooleeyaan caafimaadkii naloo nooleeyo maxaan ku idhaahdaa dhinacyadii bulshadu ay u baahnay biyaha naloo nooleeyo wax kasta oo garab ahoo naloogu noqon karo dadka reer Goobweyn loogu gargaari karo in laga soo qayb qaataan runtii ka codsanaynaa. waa maalin taariikhi ah oo sharaf leh. mashruucan maamulka degmada waxaa fulinaya dowlad goboleedka Jubbaland oo meelo kale la kaashanayso inta oo koobiyaana gudoomiyaha degmada sheegna annana directives aan ka bixinay saacadan laga bilaabo dhagax dhignay dhismihii baa bilaabanayo. reer Goobweyn waxaan ka codsanayaa kuna dardaarmaya inay midnimadu adkeeyaan amnigana sugaan cadowgana ka feejignaadaan. waxaan ammaan u soo jeedanayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo isaga gartay in mashruucan la geeyo tuulada Goobweyn mashaariic kalena uu soo wadaa. Goobweyn muhiimad gaar bay noo leedahay reer Goobweyn idinkana waxaan ku codsanaynaa ciidamada nabadgelyada oo amniga sugaayo oo habeen iyo maalin soo jeeda inaad gacan buuxisiisaan midnimada adkeeya dowladnimada taageera dowladnimada sahal laguma helo. meeshaan dowlad goboleedka Jubbaland ka hor waxay ahayd waad garanaysaan. waxaan idinku ognahay inaad dowladnimada taageertaan amniga la shaqaysaan ciidamada amnigu idinla joogana ha gacan siisaan. محمد قاسم علي وحر تي في عالم قاساب
magaalada Kismaayo.